laakiin waxaan idin leenahay waxaan la iskaga hari doonin waxaad sameeyeen waxaan leenahay dadkaas hantidooda insha Allah ta'ala waxaa garoonka Cabdullaahi Yuusuf ee magaalada Gaalkacyo lagu sagootay qaar kamid ah dadkii laga soo raafay Laascaano dadkaasi oo tiradoodu gaadhayso 78 qof kuwaasi oo la geyn doono deegaanada ay ka soo jeedaan ee Koonfur Galbeed Soomaaliya maamulka gobolka Mudug degmada Gaalkacyo wasiirka haweenka Puntland oo kamid ah wasiiradii guddiga ahaa ee Puntland u xilsaartay xaaladda dadka laga soo raafay Laascaano iyo mas'uuliyiintii Koonfur Galbeed ee shalay soo gaaray magaalada Gaalkacyo ugu horreyn waxa warbaahinta si wadajir oo la hadlay duqa degmada Gaalkacyo Maxamuud Cabdinuur Aadan isagoona sheegay in ganacsade reer Puntland ugu deeqay dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya lacag min $100 kuwaasi oo ku soo jeeday deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa shalay nagu soo biiray golaha xukuumadda afar wasiir iyo la taliye sare oo arrimaha qoyska iyo haweenka madaxweyne Laftagareen oo si ay noola dardargeliyaan dadaalkii dib u dejinta aan u wadnay iyo sagootinta walaalaheen Laascaano laga soo barakiciyay maanta halkan waxaan ka dhoofinay 21 qoys oo tiro ahaan noqonaya 78 qof oo ay diyaaradda u soo direen maamulka walaalaheen Koonfur Galbeed dawladda Puntland ay sagootinta iyo ama bixinta iska lahayd gacmo wadajir bay ku gooyaan awal dawladda Puntland ayay gaar ku ahayd iyo bulshadeeda iyo shacabkeeda laakiin walaalaha ayaa noo soo gurmaday hawsha baaxadda ay leedahay awgeed aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa gurmadka ay bixiyeen oo kii ugu horeeyay oo ahaa diyaaraddaas maanta qaaday dadka maatada iyo caruurta iyo waayeelka u badnaa oo si nabadgelyo ah ku gaari doona saacad gudaheed magaal madaxdii Koonfur Galbeed Baydhabo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa jazaakumullahu khayran jazaa baan leenahay oo waxay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan tareen gaar ahaan Puntland culeyskaan u saarnaa ay u soo gurmadeen iyadana waxa xusid mudan ganacsade reer Puntland inuu isaguna qayb ka qaatay dadka ama bixintoodii oo qoys walba oo lacag $100 ugu deeqay si markay Baydhabo ka degaan ay waxa weeye duruufahooda gaarka ah ay cuntadii iyo biyihii iyo waxoodii ay ku xalistaan iyadoo dawladda Koonfur Galbeed iyo madaxweynihii iyo golayaashii dawladuna ay sugayaan ayay gacan qabsi lacagtaas u ahayd isla ganacsadahaas wuxuu isaguna ku deeqay 750 qoys oo dadka ka soo barakacay Laascaanood ah in Puntland gudaheeda waxa way raashin lagu siiyo muddo 3 bilood ku filan waxa kale oo iyana jirta waami ururka dhalinyarada islaamka oo saldhigiisu yahay waami oo isaguna nala soo xiriiray inay hayaan 150 qoys oo aanu ku niri dadka Baydhabo tagay Baydhabo looga dabageeyo maadaama halkan ganacsadahaasi uu ku deeqay si loo ilaaliyo in dadkii wixii wada gaaraan waxaan ku xiray Xasan nin la yiraahdo xiriirka noo hayay wasiirka muxuu ahay toole gargaarka ayaan ku xiray isaga ayaa dabageli doona insha Allah waxaan moodaa culayskii raashinka iyo cuntada in xoogaa hadda naga degay dadka muxsiniinta ah ama dawladda Sacuudiga ha ahaato ama dadkaas ganacsatada Puntland ha ahaato ama in cid wax soo gaarsiisay waa uga mahadcelinaynaa gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka Mudug Xasan Wardheere ayaa bogaadiyay mas'uuliyiinta ka qaybta ahaa gurmadka dadka laga soo raafay Laascaanood waxaan aad ugu faraxsanahay isbeddelka golaha wasiiradu ay dadka ku arkeen maalinka hore iyo maanta ay boqodeen wajigooda iyo dhabankooda waxa ka muuqday oo quruxda oo ay runtii aad nagu amaaneen baan aad iyo aad waxaan amaanta u seenaynaa maamulka gobolka iyo maayirka magaalada oo shaqadaas mudarintii ka soo shaqeynayay waxaan aad ugu faraxsanahay dadaaladii wasiirada iyo la taliyaha madaxweynuhu runtii ay nala garab taaganayeen ilaa shalay ilaa xalay ilaa maantay 78 qof baynu diray oo intaasina iyaga iraada lahaa iyo kala doorashada inta in ka badan oo 1,000 qof ku dhow 1,000 qof iyo xogaare magaalada waa ay joogaan qofka rabitaankiisa iyo dooqiisa ku tagayay barnaamijkaas barnaamij xalka waar u ahaa waxaan aad ugu faraxsanahay wasiiradu inay arkeen dad reer Koonfur Galbeed oo ku qanacsan ku noolaanshiyaha Puntland ku qanacay nidaamka loo soo dhaweeyay ku qanacay walaaltinimadii markii hore jirtay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wasiiradu laftigoodu dadaaladii iyo juhdigii faraha badnaa oo ay ku bixiyeen ilaa maanta ay nala sugotiyeen ugu dambeyntii wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa sheegay in Soomaaliland aan looga hari doonin hantida dadka ay ka soo barakiciyeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool insha Allah ayagana waxaan rajaynaynaa
markay tagaan inay farxad iyo reynreyntu ayna la wadaagi doonaan waxaan kala rabaa inaan ku daro insha Allah taala maanta kaliya kuma eko dadka baxayo berrina waxa bixi doona diyaarado kale haduu Ilaahay idma insha Allah sida uu sheegay walaalkayga waa sax waaye dadku waxay ahaayeen dad tiro badan oo hadee ayagoo hantidoodan inta laga soo reebta ayagana baabuur isku rogayaal lagu soo qaadayo si aanan fiicneen islaamnimada iyo ehelnimada iyo qaraabanimada iyo tolnimada iyo hadii hataa tolnimada dadka ay sirbiin hataa u fiicneen islaamnimada in lagu soo qaado waxaan leenahay insha Allah dadka horta waxay noqon doonaan dad deegaanadooda ku laabto deegaankooda ugu horeeyay ee Puntland ay soo gaareen waxayna si aadi doonaan midka koonfur galbeed insha Allah ma noqon doonaan dad la'aan insha Allah taala dadkooda ugu horeeyay Puntland ay noqdeen kuwa ku xigana waxay noqon doonaan kuwa ay ka dhasheen ee koonfur galbeed waxaan rabaa fariin inaan u diro kuwa saas dadka soo yeelay insha Allah taala waxaan leenahay dadka waa soo tarxiisheen xoolahooda leedin kaga harimaayo bil xaqiiqa dadka hanti ayaa ka taalo guriyo ayaa ka yaala baabuur ayaa ka taalo xoolo nool iyo kuwa kale ka yaala Soomaalidana si fiican ay isu taqaana bil xaqiiqa markaan u hadalno waxaan leenahay insha Allah gudiga oo ugu badan oo ganacsatada wuxuu joogaa Garowe maalmaha soo socda waxaan aadi doonaa Garowe waxaan tiri koobi doonaa hantida dadka ka maqan waxaan leenahay dadka walaalahayna haddii ay leeyihiin dawladan xoogtay reer Laascaanood hantida dadka walaalahayna lidinkaga harimaa iska diyaariyo intaasaan leenahay hal iska diyaariyo hantida dadka aad soo raafteen oo aanan u qalmin in la soo raafo waxa soo raafteen gabdho oo maras ilmo yar oo marasa gabdho oo wadooyinkii ku dhalay culamaa u diin masaakiin intaas soo raafteen haddii hatta maanta aad dhihi leedeen meesha waxba ka jiro dhalinyaraan soo raafnay waxbaan dhihi leen dhalinyaro ma soo raafin waxa soo raafteen gabdho umul ah waxa soo raafteen dad oo culamaa u diina dad waayeelaa oo indha la'aanaad soo raafteen oo baabuur ku soo dhaxtuurteen si aan diintana qabin sharcigana aan qabin wax la dhihi karo oo maanta aan ku tilmaami karo aan qabin laakiin waxaan idin leenahay waxaan la iskaga hari doonin waxaad sameeyeen waxaan leenahay dadkaas hantidooda insha Allah taala u diyaariya haddaad u diyaari weydaan Soomaali waa iska taqaana maanta ka sheekeeyeen insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Nimca Abdiraxmaan Maxamed Nimca Fiora wararka warbaahinta Idil TV magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug